muddo 3 sano ayaa ka xigta Turkiga u dabaaldegidda sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegatay aasaaska Jamhuuriyadda Turkiga. Markii uu soo idlaaday dagaalkii koowaad ee dunida, xulufihii Britishka ayaa ahaa kuwii ku guuleystay dagaalka. Xilliga kooxihii laga adkaaday waxaa ka mid ah dowladdii Cuthmaaniyiinta oo dhul baaxad weyn ka talinaysay. Waxa uu ahaa waqtigeedii ugu xumaa kadib 600 oo sano ay maamuleysay mandiqad aad u weyn. Sanadahaasna ayay la kulantay caqabado badan oo ay xamili weyday. Dadkii deganaa dhulkii ay maamuleysay, xoogihii reer Yurub iyo boqortooyin kale ayaa wiiqay awooddii dowladdii Cuthmaaniyiinta. Intaas kadib waxaa abuurmay kooxo uu hormuud u yahay Mustafa Kemal Atatürk oo u dagaalamaya madax bannaanida waddanka Turkiga kadib markii ay wiiqeen boqortooyadoodu. Dagaalo badan ayay la galeen kooxihii Mustafa Kemal Atatürk, Giriiga, Armeeniyiinta iyo isla boqortooyada Cuthmaaniyiinta iyo qaybo ka mid ah dalalkii ay ka talinaysay boqortooyada. Taas ayaana kaliftay inay noqdaan kuwo jaangooya arrimaha Turkida. Waxaa bilaabmay xilliga xoogagii reer Yurub inay heshiis la galaan kooxdii Mustafa Kemal Atatürk. Heshiiskaas ayaa dhaliyay in la aasaaso Jamhuuriyadda Turkiga ee maanta jirta. Heshiiskii xilliga la galay waxaa ka mid ah aasaasidda Jamhuuriyadda Turkida, in meesha laga saaro ama la tirtiro boqortooyada Cuthmaaniyiinta, in dhulkii ay maamuleysay ay gacanta ku dhigaan dalalkii dagaalka ku adkaaday sida Britishka iyo Faransiiska, inay xornimo siiso Armenia, Bulgaria iyo qaybo ka mid ah Giriiga, in Jamhuuriyadda Turkiga ay noqoto dhulka ay maanta maamusho aysan ku xadgudbin dhulalka kale. Waxaa kaloo ka mid ah heshiiska in boqorkii xilliga ay Cuthmaaniyiinta dalka laga musaafiriyo isaga iyo qoyskiisa, hantadiisana lala wareego. In marinka Istanbul ee badda madow oo 5 wadan marka Turkiga laga reebo marana uu noqdo marin caalami ah, dalalkaasina ay ku maraan si bilaash ah. Ogow marinkaasi sanad walba waxaa mara maraakiib kor u dhaafaysa 50,000 oo maraakiib oo ganacsi ah. Waa kan labaad ee dunida ugu mashquulka badan. Turkida ayuu dhex maraa, haddana uusan wax qarash ah ka qaadanin. Aasaaskii jamhuuriyaddu waxay bilaaw u ahayd soo nooleyntii iyo jiritaankii bulshada reer Turki. Dowlado badan ayaa isaga dambeeyay kadib Erdogan oo maayar ka soo noqday Istanbul. Xisbigii uu aasaasay ayaa ku adkaaday doorashadii dhacday 2002. Xilliyada Turkiga dhaqaale xumo baahsan buu la daala dhacayay, isla maalinka suuqyada sarifka ee Turkiga ayaa qiimo sare gaaray. Tan iyo xilliga uu dhaqaalaha Turkiga ahaa kaliya $234 bilyan oo dollar. Erdogan siyaasadiisu waxay ahayd inuu Turkiga maqaamkii uu mudnaa ku soo celiyo. Dhowr doorasho ayuu ku guuleystay, sidoo kale dhowr afti ayuu qabtay uu wax ugu bedelayo siyaasadda Turkiga, waa uuna ku guuleystay. 11 san uu ra'iisul wasaare ah, sanadkii 2014 ayuu noqday madaxweynaha dalka, maadaama uu doonayay inuu awoodda ra'iisul wasaaraha u wareejiyo awoodda madaxweynaha. 2 sano kadib xilliga Turkiga waxaa ka dhacay afgembi dhicisoobay. Erdogan dalka waxa uu geliyay xaalad degdeg ah. Turkiga intuusan afgembiga ka dhicin waxa uu ku jiray heerkii ugu sarreeyay xagga dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, amniga, wax soo saarka iyo tiknoolajiyada. Sanad kadib Erdogan ayaa ku dhawaaqay afti dastuurka wax looga bedelayo oo nidaamka ra'iisul wasaaraha iyo dowladda baarlamaanka ay hoostagaan meesha laga saaro, dalkana uu noqdo mid hoostaga xukuumadda madaxweynaha, dowlad ahaan iyo qaran ahaanba. Aftidaasi waa uu ku guuleystay. Isla sanadkii xigay ayaa la qabtay doorashada dalka, isla isaga ayaa la doortay. Sanadii 2010 ayuu Erdogan ku dhawaaqay hiigsiga 2023 oo la doonayo Turkiga inuu gaaro guulo waaweyn oo ay ka mid yihiin ka mid ahaanshaha 10 dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Xilliga Turkiga waxa uu ku jiray kaalinta 16aad, maantase waxa uu ku jiraa kaalinta 18aad. Iyo gaarsiinta dhaqaalaha dalka 2 trilyan. Xilligaas dhaqaalaha dalka waxa uu ahaa 940 bilyan, maantase waa 813 bilyan oo dollar. Waxaa kaloo ka mid ah gaarsiinta dakhliga sanadeedka qofka Turkiga soo gala 25,000 oo dollar, maantase waa 9,000 oo dollar. Hiigsiga waxaa kaloo ka mid ah in alaabta Turkida dibadda u dhoofshay ay gaarto 500 oo bilyan, maantase waa 180 bilyan oo dollar. Waxaa kaloo ka mid ah in ganacsiga shisheeyaha ee gudaha Turkiga uu gaaro 1 trilyan, maantase waa 390 bilyan oo dollar. Waxaa kaloo ka mid ah in dadka shaqeeya ee Turkida ay gaaraan 30 milyan oo qof. Taasi waa lagu guuleystay maanta. Turki waxaa shaqeysa 32 milyan oo qof. Sidoo kale waxaa ka mid ah hiigsiga in xaddiga shaqo la'aanta la gaarsiiyo 5%, balse maanta waa 11%. Hiigsiga waxaa kaloo ka mid ah dhisidda xarumo lagu bacrimiyo nukliyeerka, tamarta iyo waxyaabo kale. In caymiska caafimaadka dalka 100% uu wada gaaro waddanka. In tirada dhakhaatiirka Turkida la kordhiyo oo 100,000 oo Turki ay helaan 210 dhakhtar, balse maanta 100% waxay helaan 175,000 oo dhakhtar. taas oo ka dhigaysa dhakhaatiirta Turkida inay kor u dhaafayaan 990,000 oo dhakhtar.
waxaa kaloo ka mid ah hiigsiga inuu noqdo dalka shanaad ee dunida ugu dalxiiska badan, sanad walbana ay booqdaan 50 milyan oo dalxiisyaal ah, dakhli ahaan uu ka helo 50 bilyan oo dollar. maantase waa dalka lixaad ee ugu dalxiiska badan caalamka, waxaana booqda 39 milyan oo qof sanadkii, waxaana ka soo xarato 30 bilyan oo dollar oo lacag ah. caqabado dhowr ah ayaa is-hortaagay hiigsiga, waxaa ka mid ah afgembigii dhicisoobay ee dhacay sanadii 2018 kaasoo lacagtii liirada hoos u dhigay, taasoo kaliftay in hiigsiga qaybtiisii uu raja yareeyo. balse iminka Turkiga waa uu ka soo kabtay. sidoo kale waxaa meesha ka marnayn in Turkiga siyaasadda dibadda uu saameyn ballaaran ku yeeshay. waxaan kaloo caddayn in heshiisyadii la galay 100 sano ka hor uu Turkiga masixi doono 100 sano guuradiisa kadib.